هدفك وجوه الشيطان يعدولين وامحي يعني أهداف مرحلية باكرة لكن هدف كما الدنبيس باكرة قولك أما يولك كما الدنبيس تأو الشيطان ربا وامحي وينو ينقي لا أصحاب صعير صحيح ماها هدف كيسة كما الدنبيس وينو الدين الآن نصاره ويردوكم عن دينكم إن استطاعوا marka diinta iibsato waxaad xaqiijisay hadafkii ugu dambeeyay ibliis lahaa waxaynu u baahanay marka inaynu dadaalo oo ku dadaalo inaynu ilaalino inaan musiibadu inaga dhicin xagga diinta nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay xadiidka saxiixu muslim warinayo abu hurayra warinayo saxiix muslimna soo saaray imaamu muslim بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا نبي عليه الصلاة والسلام حلي ورع ماشا صالح ونكسن أدك دقا انت أنا إذن كوي منين محي فتن امتحانات فتن كاسو الله مدبالي كقطع الليل المظلم habeenka gobolkiisa madow baa la yidhi mudlima midaan dayax jirin habeenka qaybtiisa madoobe maxay caan ku tahay haddaad gudcur madow lugayso maxaa jira dee waxba arki maysid ninka gudcur lugeeya habeen gudcuroo madow oo daruuri cirka jirto ama roobo baal jirana waxba aanad arkaynin haddaad socod bilowdo maxaa kugu dhacaya waxaa kugu dhacaya inaad uun dee addinka iskaga nasiibiso meel halkaad addinka dhigaysa garan maysid ma god baad ku dhici ma abaysaad ku joogsan ma qodax baad cagta ku sii wadaa ma garanaysid waad iska u nasiibinaysaa fitanku wakhtigay nool yihiin haddaad noolaato fitanka dadka ahlulcilmiga raasikhiin filcilmi ah way kala gartaan xaq iyo baatilka qolada laakiin kitaabada waxoogaaga bowsatiya caamadu waxba uma kala baxaan beledu markay dabar jeediso ayuunbay yidhahan war malaa sida kalaaba saxaasanayd sida daraaddeed waxay noqdaan dadkaasi gudcurka lugaynaya qof gudcur lugaynaya oo waa maxay acmaal badan bay samaynayaan oo aad kala garanaynin war talow ma ajir baa lagu helaya mise waa lagu dambaabaya talow diintu ma ogashay mise ma ogola markay fitanku tiro bateen baa dadku kala garan waaya diintaada inaad balkeedda maaha siiba dhallinyarada waxaan leeyahay war ha ku dheeraynina fatwada iyo waxa kan diintiinna ha balkeedina waxaanad 100% u hubin walaa taqfu maa laysa laka bihi cilmun ina samca walbasara walfu'aada kullu ulaa'ika ilaahay wuxuu inoo tilmaamay waxaasoo dhan laynu weydiinayo adigoo taadii u taagla inaad umamka masaa'ilkooda ka fatwooto وإن دتك أنت هلا لايين أنت عين كان لايين أنت حقا وخطر وحال لم ينتهي قطع من الليل المظلم قال وينيا وقتك فتنك وحي سدحك شحارانتي حلاشة وحي سدحك للظالمك يا مظلومك وحي سدحك لوحبة هدا يوحو سيدو دكاليين وقتك عن فتنك وشيرين وحال لغاية ما أنت بدن إن يدتك كلا قرتان حالاش يا حرامتي انت بدن لك لا غرت صح يا غلطك لكن markay fitanku jiraan nolosha wala qanta qof qura mar qura wada ah dhaalim iyo madluum ba wiyi qayb isaga dulmiyay qayb isaga la dulmiyay waxaba uu isku yahay kaligiiba wada ah kaligiiba dhaalimna madluumna ah oo marka jawaanibta nolosha qaar eegtay isaga la dulminaya jawaanibta qaar marka adeegtay radul ficilku bixiyayna isaga wax dulminaya isaga kaligii dhaalim iyo madluum ba wada ah idan inaad kala bixin kartaa war raasikhuna fil ilm أيوم بمسائل كاسي قرطة دين تنوات اللي يدي لما قبته محادعة علماء ذا لقبته مركا علماء ذا لقبته وحصوها ردد وحوال بددك وفتوانية رؤوسا جهالا بصوها روح فتوانية إذا النبي حلي عليه الصلاة والسلام ورعماش صالحة سماية انت أنا يدنكو صابحين فتن كاسي لمتك هبينك قبل كيس مدو ومحادعية يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا أو وشك من الراوية أما عكسها قفبا صبحي وابري سنة يسقى مؤمنة لكن مشاكل كالنولاد يوحنوا الله كل مي قلبتي وابقال
ama habeenkiibuu seexanaya isagoo gaala waagu markuu baryo waa shahaadanaya noloshiisiibaa maxay gaalnimadiisii iyo islaamnimadiisiibaa isdaba socota oo waayo noloshan uu la kulmayo imtixaanka ayuu jawaabo saxa ka bixin kari laayay waa maftuun waa mid la imtixaamay oo waxyaabaha la isku imtixaamaya maxaa ka mid ah yabiicu diinahu bicaradin min addunya buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam yabiicu diinah diintiisii wuxuu ku iibinayaa in yar oo adduunyo ama magac buu doonayaa ama maamuus buu rabaa ama hantuu doonayaa ama in la sheegaa buu raba wuxuu doonaya haado xuduudi dunya dheefaha yaree adduunyuu wuxuu siisanayaa diinkiisii baa uu nebigu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam idan kan waxa weeyaan markuu imtixaanka galay ah diinta iyo adduunka ayuu wuxuu doortay maxay beecii wuxuu qaatay adduunkii oo wixii uu gaday baa waxay noqotay diintiisii ilaahay waxaan ka baryaynaa subxaanahu wa tacaala inaanu fitnadeenna diinteenna gelinin musiibadeennu inaanay diintaynagaga dhicin inaynan noqonin kuwa diintooda ku iibsada bicaradin min addunya nabigu calayhi salaatu wasalaam ducooyinkiisa waxaa ka mid saxiixu muslim ku yaalla allahuma sarif alquluub sarif quluubana calaa taacatik ama xadiidkii kale shahr ibnu xawshab sanadkiisa uu ku jiray allahuma ya muqallib alquluubi walabsaar thabit quluubana calaa diinik ikhwatii fi lcaqiida adduunkan intaynu joogno marka waa imtixaamanay imtixaanku laakiin wuxuu u baahan yahay hubsiino wuxuu kale u baahan yahay doorashada inaad ilaahay la kaalmaysato wuxuu u baahan yahay inaad ilaahay barido nebi yuusuf oo ilaahay buu baryey rabbi sijn ilaahay buu baryayaa inuu sawaabka haleeshiiyo idan noloshan aynu ku noolay weliba casrigan aynu joogno waa casri imtixaanku tiro badan yahay waa casri xalashii xaaraantu isku walaaqantay sax iyo qaladku isku walaaqan yahay waxaynu u baahannahay diintu waa raasamaalkiiye inaynan ku khamaarin iyada inaynan balkeedin inaanad waxa ugu dambeeya ee nolosha aad ilaalisay inay diinta noqoto noloshaadu inay kuu yeelato herarkii ama kala korayn mudnaanshiiyo ay diintu tahay ka ugu dambeeya saa daraaddeed ka ummad ahaan waxa ugu weyne ummaddu ilaalisaa waa inay diinta noqotaa